madaxweyne Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay waxqabadka boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay. Munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiirro, xildhibaano iyo dadyow laga keenay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dadweynaha isugu tagay garoonka kubadda cagta ee Banaadir oo uu sheegay in shaqo la'aanta dilootay dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan uu ka qaban doono maalmaha soo aadan iyo cadaaladda oo ahmiyadda koobaad uu siin doono. Soomaaliyeed oo boqolkiiba 70 ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan. maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo amaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya. xitaa annaga bixinayna welfare wax la yiraahdo macaawin annaga bixinayna. maxaa yeelay wixii jeeb shakhsi aadi jiray annaga u hayna qofka curyaanka ah, qofka maskiinka ah, gabadha agoonta haysata, ilmaha agoonta ah, kulli annaga dawladdu ah. ilaahina anagu nagu raxsatamaya. dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan, dawladda aad kala shaqaysaan, cadaaladda haddaad nagala shaqaysaan, amniga nagala shaqaysaan. maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa. maxaa yeelay dalkani waa dal khayraad badan. khudbadaha madaxda ayaa dhammaantood taabanaya ka hortagga wax kasta oo musuq abuuri kara. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dadka hortooda ka sheegay in xukuumaddu ay wax ka qabanayso amni darrada iyada oo ay barbar socoto dhaqaalaha oo muhiimadda koobaad ay siin doonto xukuumaddiisu in la kobciyo. waxaan ku guulaysanay inaan adduunyada ula shaqaysano sidii hore ka duwan. wada shaqaynta hay'adaha dawladda, wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee dawladda oo aad u caafimaad qaba awgeed ayaa waxaan ku guulaysanay inaan dalka u qaadno tallaabo aad u hufan oo ay ka mid tahay in amniga dalka uu ka soo wanaagsanaaday. dadka magaalada Muqdishona maanta ay ku nool yihiin noloshii hore mid ka duwan. maadaama ay xukuumaddu jirtay 60 maalmood keliya ay noo qabsoomeen arrimo waaweyn oo la xiriira dhaqaalaha, oo la xiriira amniga, oo la xiriira dawlad wanaagga, oo la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa, oo la xiriira la shaqaynta dunida, oo ay muuqato iftiin aad u waaweyn oo ah dawladnimo hufan. su'aashu waxay tahay 6 bilood maxaa inoo qabsoomi kara haddii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isgarab istaagaan? 6 bilood gudahood waxaa bilaabanaysaa inaan si dhaqso ah cadaaladda wax uga qabanno, inaan wax ka qabanno qorshihii lagu gaari lahaa 2020 si qof walba oo Soomaaliyeed oo codkiisa u dhiibto, inaan ka shaqayno xoojinta wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada, inaan ka shaqayno la shaqaynta baarlamaanka si loo ansixiyo sharciyo badan oo muhiim ah oo dawladnimada muhiim u ah. madaxweynaha Soomaaliya halkan oo ahayd goob lagu taageeray ahna garoonka Koonis ee magaalada Muqdisho waxa uu ka sheegay in cadaaladdu wax ka qaban doono. baahi weyn ayayna u qabaan dadka ku nool magaalada Muqdisho cadaaladda marka la eego. ciidamada dawladda iyo dad isaga kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir ayuu u sheegay hagaajinta cadaaladdu inay tahay ahmiyadda koobaad ee dawladda Farmaajo. Cali Aadan Muumin, Goobjoog TV, Muqdisho.